أنا قبل كلا أنا كره هذا محمد جورج هذا ودقينه هو جورج أنا أركيسان بلارن سرطة إسلام مركز إنه very complex كا أما ضد أترب بدن أي مركز دقنان كريان قيبته ودقينه سيده وحكون نول إلا أفرتن يسدد قف أو كل الدول أي أكون نول وأن كل جود information كود أنا هالكم كوهايو فاللي قلنا وبحنا يا أنا جو خوبا investigation كيجا أنا جو كوك هالصون system كا وقت بدن أنكم بحي أيان الدين حقيقة يا إن محمد يا ما هذا حيان مقال كان وقيبته قدام بيسي ده بقال كأنه كون نين كم عيسى الله يقانا محمد مقال كانوا ودارن يهي سؤال شاه وما waxa ka dhaxeeya maxamed iyo mahad markii hore waxaan si xoog u fiirinayay public record ka ninkan waxa macluumaad laga heli karayo laakiin shalay waxa ii suurta gashay inaan helo background check-giisa kadib markii aan xoogaa dhaqaale ah ku bixiyay ilaa $3 isla markaasna email-kayga lagu soo diray information runtii aad u tiro badan wax badan ay nooga soo baxayaan waxaan doonayaa inaan marka hore cadeeyo qof addresskiisa qofka kale uu ka soo muuqanayo qaybta hoose hadii aad aragto oo uu la nool yahay la leeyahay ma aha arintaas arin muujinaysa in addresska kaliya la wadaago waa arin muujinaysa in labada qof ay ka dhaxayso xiriir isqabitaan ah oo dawladdu ay og tahay bay arta ku iman kartaa waana meesha aan doonayo inaan cadeynteena iyo marqaatigeena iyo systemka Sweden aan balmaanta ka bilowno أنا قبل كلا أنا كره هذا محمد جورج هذا ودقينه هو جورج أنا أركيسان بلارن سرطة إسلام مركز إنه very complex كا أما ضد أترب بدن أي مركز دقنان كريان قيبته ودقينه سيده وحكون نول إلا أفرتن يسدد قف أو كل الدول أي أكون نول وأن كل جود information كود أنا هالكم كوهايو سيده درجة مركي أتفيرسو رير كان وكلته أمال يا عبد الناصر والله وقف أنا يرى أو ولا لا أو قيب السجودو مركز سيدكن labada qof markii aad mid walba gooni u fiiriso amaal inay maxamed inay cabdinaasir la nooshahay record-keeda kuma qorna cabdinaasirna record-kiisa kuma qorna inay amaal la nooshahay waxa kale oo labadan qof la nool qof kale oo weyn oo maleynaya inay qaraabo yihiin oo maxamed la yiraahdo maxamed naftirkiisa record-kiisa kuma qorna inuu amaal iyo cabdinaasir ay isla nool yihiin qof walba goonidiisa ayuu record-kiisa u yahay inuu hebel la nool yahayna kuma qorna maadaama aysan ahayn dad isqaba labada qof ee kale walaalaha waa laba qof walaala ah qofkana waa qof mid qaraabadooda ta marka waa tusaalaha ugu horeeyo doonin inaynu ku ogaano dadka uu la nool yahay la yiraahdo halka ay ka timaadeen qaybta dambe aan ku sheegi doonaa tusaalaha labaad Maryam iyo Maxamed iyo Hozam waa saddex qof oo ajnabi ah ayaguna qayb asaga u dhow markaas bedegay yihiin ma hadad isqaba labada qof ee hore waa laba qof oo walaala ah sida magacooda laga arkayo qofka dambe tan waa qof ayaga markaa la degan qof walba markii aad fiiriso Maryam iyo Maxamed iyo Hozam markaad qof walba gooni u fiiriso ayagoo hal address isticmaalay oo hal address wada degan yihiin oo hal address ay ijaarteen aysan haddana record-kooda ku qornay inuu hebel la degan yahay Maryam Maxamed la degan tahay Maxamed iyo Maryam la degan yahay kuma qorna shuqul isku malaha ismana qabaan waa tusaalaha labaad in u baahanahay inaynu kiiskan maantayto aynu ku dhisno Xafiifa iyo Yusuf waa laba qof oo waaweyn oo isla gurigan degan waa konton isna dhowr 56 years 62 years bay kala yihiin wala qof oo isqaba markii aad fiiriso Xafiifa waxa arkaysaa inuu Yusuf ugu jiro oo ay la nooshahay because wuu qaba Yusufna waxa arkaysaa inay la nooshahay Xafiifa ee dabcan way isqaba waa tusaale balak aan weyda dadka aan waxba qorinin waxna akhrinin waqtina aan gelinin waxa aan waqtiga gelinayno ayaa meelaha waxay ka leeyihiin addresska waa la share garaya waa run addresska waa la wada degi karaa laakiin record-ka kuma geli karto inaad qof la nooshahay nolosh kala dhaxayso waa topic kale oo gooni ah hadaba marka arintaas xagee ka timaada marka qofka uu apply gareysanayo wax loo yaqaano residency permit ama green card uu dalka ku cusub yahay ama hadii uu ka dhacay oo uu dib u cusboonaysiisanayo ay qasab tahay formka inuu xarayo waxa formkan si cad ugu qoran waa inaad sheegtaa qofka aad la nooshahay inuu wali kula nool yahay haduu jiro qof xiriirka la dhaxeeyo oo aad wali wada degantihiin qaybtaan yalowga ah waa degniin ay dawladdaasi markaasi immigration koodu oo foomamka dadka markay apply garaysan green card marka lagu qoro waana halka qofka ay ka soo raacday hebel buu la nool yahay ereyga uu la nool yahay halka ay ka timaaday waa halka ninkan Maxamed markii uu dalka iimaanayay maadaama ilaa 5 sano 6 sano meelaha uu joogo oo uu green card ka qaadanayay ayaa systemku wuxuu u galay inuu hebel la nool yahay waana laba qof oo dalka ama ku yimaaday oo waliba inay isla yimaadeen aaminsanahay
inay markaas iyagu isqabaan waana sababta uu halkan hoose umahad iyo maxamed ay ugu jireen qof kale oo aan sidaa ahayn oo adresska bas ay share garayaan haddii ay sidaa noqoto $1,000 oo lacag ah ayaa bixinaya raaligelin waa bixinaya anigoo huba investigationkayga anigoo ku kalsoon systemka waqti badan aan ku bixiyay ayaan idin xaqiijinayaa in maxamed iyo mahad ay ahaayeen lamaane ka diiwaan gashan dalka Sweden formka markay buuxinayeenna ay ku buuxiyeen oo kaliya inay wada nool yihiin ay ku buuxiyeen oo isqaba yihiin